inkastoo igu leeyahay haddana waxay keenaysaa waaqicaynu marayno in badan inaan dhahno ruux bal cilmigiisa alla fiiriyo hawsha hawl iska cad wey sheekh cabdiqaadir 4.5 cabaar baan soo saaraa adaa soo dar sheekh ibraahim fadal ku caday ku xamdi ilaahay ku mahadi dadka ay ka xoogo ka qarsoon tahayna u cudur daar waxna u caday inkay ku cadaato inuu og yahay hawshan ku adeeyahay ku adag yahayna hoosta ka xariir waa hoos ka kooban weey ilaahay ku mahadi dad badan oo jahlayeen u cudur daar ninkay ku cadaato hawsha inuu og yahay caanada aw lam yucaanid waa kufrigiisu waa cadiya shir ama wadaaduhu ma naqaan hadee waxay u daleeyeen haday sidaa u sheegtay ay tahay hawshan uu sheekhu ka hadlayo nuqul dhowraan rabay inaan idin sheego oo bal wadaadaha alqaburiyin aw alwathaniyin waxay aaminsan yihiin ninka loo yaqaan shacraani min a'immati suufiyya kitaabkiisa loo yaqaan aljawaahir wad-durar wuxuu ku leeyahay inna allaha yuwakkilu biqabri alwaliy malakan yaqdi hawaa'ij an-nas dhagayso markaan leenahay anagu nimankan wathaniyiin mushrikiina weey culumadooda iyo caamadooduba waa ru'aasiya muqallidiin isku dabbay galhayaan isku gudbayna ku go'ahayaan wuxuu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ruuxa weligaa dhintay qabrigiisa malag baa loo soo diriba bal u fiirso sakaraadkaas baktigaa u fiirso malag baa la soo diray qabrigu dul taagan yahay malaggaa wuxuu gudahayaa ruux kastoo weliga wax weydiisa dantiisiba oofinhayaa malagan yaqdi xawaa'ij annaas sheekh cabdiqaadirow oo sheekha faraha ka qaaday أحمد الرفاعي واك واحد الشيخ الداء يعني طيب أئمة الصوفية واجي تتار كسو دولي عالم الإسلامي وحيليه إن غزوة تتار بلاء من الله سبحانه وتعالى ولا داعي لمحاولة مواجهة القدر الإلهي بجلاله تتار هو بلاء إلهي صدر وأمة الإسلام قالوا امتحانها هاي بلاء إلهي صدر لقما هرتقي على سديبه sulasha la qabsado waaniga shalay idin sheegay mid sakarada Soomaalida meelaha Nairobi joogo wareersan xuudhe axmaarada iyo unisom muxuu emisomta haloo sabro guriga haday u soo galaan u samir islaanta haday kufsadaan fasbir ana ideen foorasol loo yahay qabso ligooda lagu sameeyay fasbir oo Soomaali uu jooga sheekh banayba kule cumad baa garab ku saar يعني وهول اسكا كوبان وي هوش waa iska fashilanta طيب marka qolihiisu waxay dhaheen tataarku waa balaa la soo diray ilaahay balaa soo daay gacmaha laga horgeey hal isdhiibo lawiyaha la qabsado ninka loo yaqaan Yusuf an-Nabhani al-Falastini al-Wathani min a'immat al-Wathaniyya wuxuu leeyahay inna al-muslimina min ahli as-sunnah wal jamaa'a ufirsu ahli as-sunnah wal jamaa'a malak waxa ku dhacay inna al-muslimina min ahli as-sunnah wal jamaa'a وهم جمهور الأمة المحمدية يعتقدون دقيس هذا وبالنص حروفه يعتقدون فيه أي في الرسول رسولك وحي كأم زيه أنه يعلم الغيب ويعطي ويمنع ويقضي حوائج السائلين ويفرج كروبات المكروبين وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء كتاب كيس الله يقان شواهد الحق في استغاثة سيد الخلق دار حديث بويا الله صفحة صدح بقول كنتون يشان كثير ما هو واحد اسكسو بيقولون ايو شيخ برلي ما وائمتهم وي اهل السنة والجماعة وهم جمهور الامة المحمدية وحي امن زين ما وحي صميان ما اعتقاد وي حتى قولهم مرجئة السلفية وين لسو هذا هو تاجر سي لان اعتقاد بلغ الله يعني هوس بالودا دغاي اللي كور كوران اسكو خلافتنين waxay aaminsan nabigu inuu qeybka og yahay oo wax bixiyo waxana diido hawlihi ilaahay way nabigu wuxuu leeyahay walaw kunta a'lamu al-ghayba la istaktartu min al-khayr wa ma masani yasu hashiisi baa nabigu intay fakatay oo ilaan xariga u qabtay baa la waayay markii la guuri lahaa
markaasuu laga samray munaafiqiinta baa ku guursadeen nabiga la socdo waxay nabi maxamed cirkaa layga warrama buu lahaa waa yaa dhaweyd oo naftu noogu keenay hashiisina meel joogto u garan la'yahay laga samir ciidanka oo dhan baa la soo helay ciidan baa la diray ansaar baa soo weyday muhaajiriin baa waa la soo waayay buur ba intay xagga la ka martay baa iyadoo socoto geed daaqaysa hogaankii xadhiggii baa geed ugu marmay halkaa bay ku xidhantay marka nabiga munaafiqiin ku guursadeen jibriil baa yimid u sheegay le hashaadii halkaas iyo halkaasay joogtaa geed baa sakal baa meesha u qabsatay aa la soo qaado nabigu saxaabu diray markiiba meesha lagu tagay caaisha umu lmu'miniin xibu rasuulillah axabu nnaasi ila rasuulillahi cala itlaq soo ma ogidin fi saxiix waad garanaysaan baa nabi lagu sheegay inay zinaysatay oy munaafiqiin dureen muslimiin wanaagsanna kula gubteen oo bil dhan iyo ka badan nabigu lahaa kayfa tiikum oo xaalkeeda u caddaan waayey ilahayna bal ilah u caddaa hawsha awa qaybku nabiga ogyahay sal ly slam wuxuun ilaahay ogeysinin buu nabigu ogyahay salawatu waslamu calayh yacni musiibada intaa la eg baa diin lagaaga dhigi ayib waxay dhaheen marka wayaqdii xawaa'ij asaa'iliin dadka wax weydiiso o dhan bu wax u gudaa nabigu siiyaa wayufarij kurbaata almakruubiin dadka kodolaysanay kurbada hayso o dhan buu ka neefiyaa wa annahu yashfac fii man shaa ruuxuu doono u shafaaco qaadaa walaa yashfacu cindahu ila biidnih man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih idan walaa tanfacu shafaacatu cindah ila liman adina lah aw liman udina lah ayib hawlahaas u dhan shaqayn maya cinda asuufiya alwathaniya alqaburiya la soco intaa waxaa ka daran wayudkhilu ljannata jannada wuxuu geliyaa man yashaa ruuxuu doonu galdhahaya ayib dadku ugu jeclaa nabi maxamed ummaddiisa waxaa ka mid aha dadka qaraabadiisa abu aalib nabigu jannadan gal miyuu odhan haya bal nabig wuxuu inoo sheegay inuu naarad ku jiro oo naar gelahayo laakiin uu yahay ahlu naarka ninka u naar fudud ugu naar fudud meesha naarta dhaygeedaa la geynaya meesha xoogo dhayga moolkoose la geyn maayo yaa baabkaa inaga daada nimanka wasaniyiinta warkooda iga daaye yaana ku xabeebani maxamed calawi almaliki oo maka fadhiyey wasani kalau ahaa maka fadhiyey oo maaliki ah kitaabkiisa fi dakhaa'ir wuxuu ku leeyahay adakhaa'ir almuxamadiya wuxuu ku leeyahay waxaa ka mid a waxaanu aaminsannahay biana lirasuuli illahi sal ly slam maqaaliidu الsamaawaati wاlard وأن له أن يقطع أرض الجنة ويعلم الغيب والروح والأمور الخمسة التي اختص الله بها وأن الخلق خلقوا لأجله warkaa ma fahmaysaa waxaanu aaminsannahay buu uhi maamulka dunida o dhan rasuulka gacanta ku haya maqaalidu الsamaawaati wاlard adakhaa'ir almuxamadiya nabigu wuxuu awood u leeyahay jannada inuu qayb kuu gooyoba intan waxaa degay ree hebel cid kale degi mayso waa beer waa soo goynhayo jibaalle u goynhayo nabigu wuxuu qaybka o dhan buu la socdaa ruuxda la yidhi wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan buu nabigu og yahay bur waxay alumuur alkhamsa shanta arrimood ilaahay goonida la ahaa nabigu waa og yahay ruuxu xilliguu dhiman roobku xilliguu di'i caloosha waxa ku jira wuxuu yahay bitafsiil maxay aayaddii suurat luqmaan dhammaankeedi cilmu الsaaca ayib jibriil markuu weydiiyey muxuu ku yidhi ma lmas-uulu canha biaclaa min asaa'il hawlahaaday ku taallaa annaga suufiyadna la yidhahda la soco shanta arrimoodee ilaahay uu la gooni noqday nabigu waa og yahay iska badaaya khalqigoo dhan ba asaga dartii baa loo abuuray maxaabaad ka wareegeysan waa aadam ka soo bilow ilaa nafta ugu dambaysay bini aadam nabiga dartii baa loo abuuray ilahina wuxuu leeyahy wamaa khalaqtu اljina wاlins ilaa liyacbuduun daybicigaa lagu akhriyi jiray barsanjigay ku taallaa meelo badan bay ku qoran iska ku jooji hadallaha wadaadahoodaan rabaa a'imadooda ayib wuxuu leeyahay mar labaad isla kitaabkaas walaa shaka ana alarwaaxa tujiibu man yunaadiiha wa tugiiثu man yastagiiثu biha kaalaxyaa'i sawaaءan bisawa bal hiya ashaddu waacdam arwaaxda dhimatay buu idhi ruuxii barya way maqli waynu waxbay u qabanaysaa ruuxii gargaar weydiisa hoobay leedahay sida dadka nool bay la mid tahay bal ruuxu markuu dhintuu ka qiimi badan yahay markuu nool yahay kitaabka adakhaa'ir almuxamadiya safxada 93 ugu laabo asuyuuطi oo hadda kahor idiin sheegay inuu yahay ashcari jaldi ajahmi o maca annahu haddana uu yahay qabuuri baktiyey wuxuu leeyahay kitaabkiisa alxaawi lilfataawi mujaladka labaad 265 wuxuu ku leeyahay ina الnabiya sal ly slam xayun bijasadihi wa ruuxih
وأنه يتصرف ويسير حيث شاء نبي وحب مامولا ميشو دونو مراه في أقطار الأرض صومالي وإيمان هيا عبار بوتشي وكتك هيا بغداد بوكتك هيا وسعون هيا أفغانستان بوتك هيا مصر بقصة اللابان هيا وطوافا نبي الله محمد كمجر قبر جيس سكرات بقبر تحفر دي محان نبي قبر تحدق هيا ساسو يقضوا هيا وأنه ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت دول كابر اسكود إن عركنا ومقايبه سماواتنا وكشقين هيا طيب ديارحون يقالك عيان بابا دوشيه من يحل دولوا وأنه مغيب عن الأبصار بود لكن نبكي إذا هيستبوا ما أركيسار وضولها يوسع لكن أمتش يدان بود ومحاجرة كما غيبت الملائكة بود سيدا الملائكة بقى لو أركين بقى النبي قال لو أركين لكنه فديها لغيابا وعشتك دقيسان هيو على مذهب السيوط سيدا درت برك الله مرة موليد قيبة كميدة iyo xatarada qaybo kamidaba maxalul qiyaam wax la jira si loo wada dhigi hal istaago huna maxalul qiyaam allahumma nabiga yid baa wuu yimid hal istaago maxalul qiyaam baa loo yaqaan xadir allah ma inoo dambayso taas waa tilal kasaawi tayib كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم مجلد وانكوش أما يوسف الرفاعي هاشم الرفاعي وحليه وقصد الأماكن والمعالم المباركة التي يرجى فيها استجابة الدعاء والتوسل كالمساجد والأضرحة شرع منصوص إن لو قصد قوبها إيو قبورتها بركيزا إيو مساجد وشرع منصوص أبو الأضرحة الأولياء وإن لو قصده ولقد دعيسهم حي دعاء لقوا أقبلا لقوا التوسل قال لقوا أقبلا وشرع النبي محمد بكول إنا لله وإنا نبي حوليه قبر جيان أكتيس قرينا قبر يزنقون قبر القرآن عباد الله ما بنا لما أقول حق ين لو تكنين يعني لو قد تكنن قبور يعني إن تغيير الشرائع سمارك ينا نسجدينها إنما قايقة كتابك الله يغنى الرد المحكم المنيع صفحة تضباطين يا شناب الكوثر الحنفي الوثني لقيسو محمد زايد الكوثري وحولي إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح والقلم إذا قام لها ورقيسان هي وحاول يعلم علم اللوح والقلم قبر أنصاري ير بران برتوى حاجة وفينا النبي يعلم ما في غد تيحوه قب كسي سيدر وفينا نبي يعلم ما في غد نبي بأن لتشوغا reer hebel baan nahay ansaar baan nahay ahlu khayr baan nahay waxba ka sii daran bay tiri nabi baan dhax fadhiya wax bari dhic la socda nabi wuxuu yiri hadhiin hadalka bedel quli wax kala dhim maxay ma ya'lamu ma fi ghad illa Allah hadii saxiix weey waxa bari dhiciyadaan Allah in ma ogo aswareerin gabadhiya buraamurka iska wada laakiin suufiya waxay dhan maya maxay ghad ka sheegaysaa ilma al-lawh wal qalam طيب كتاب كوثري ويا مقالات الكوثري تؤلف كيتات كوردوبنيا طيب إن النبي يعلم علم اللوح والقلم وليس الغيب ولا العلم كله ما في اللوح فقط مقالات الكوثري صفحة صدح بقول سديتني يشان هي كتاب كسلو يقانو تبديد الظلام صفحة بقول لحدا يلبو وحال هذا كتاب كله كتير إن أرواح الأولياء هي المدبرات لهذا العالم أولياء الروح أدون كما مشه كدبنا ومسلمين بل إلى هذا الضقنة والضبالة لمن كان نوع أوها الله يسيد على علماء دي بضحى إلى المسلمين وي ورأدون كما الله مامله مثل أولياء ما مشه هي المدبرات في العالم كتاب كاس لفتك يسوي صفحة صدح بقول سديتني اللبو يلحدني يستغال تبديد ظلام كما كلا فيري مر لبا صدح حوليه ولا بد لأهل السلوك والرشاد من التوصل والاستغاثة والاستمداد بأرواح الأجلة والسادة الأمجاد إذ هم المالكون لأزمة الأمور في نيل المراد وركا وفهم إيسان بإلتها انت أسوال لك أذاقيا وحولي علماء يا أهل خير كي عبادة وحلقا مرمان إن أي كالميسان كنا توصلان بريان قرقار ويديستان أولياء دبو يا علماء يا سادة يا أبا يسيتي اللي قد بوريكو maxaa yeelo loo bariyo sheekhow wuxuu yiri idhum almalikun
ayagaa hantoo gacanta ku haya buuhi liazimati اlumuur arrimaha hoggaankoodaba wax kastoo duniyada ka dhici hoggaankooda awliyada haystaba kuuri fii nayl muraad ninkas markuu muraad leeyahy waa inuu awliyada soo maro wey irghaamu اlmuriid kitaabkiisa loo yaqaano safxada shanaad buu saa ku leeyahay mar afraad wuxuu leeyahay alwaliyu fi اdunya kaasayfi fii gamdi ninka weliga wuxuu la mid yahay seef galka ku jirta faidaa maata tajarada minhu markuu geeriyoodo seeftuu ka baxahaya galkiibuu ka baxahaya fayakuunu aqwى fi الtasaruf si aan caadam marka u maamulaya adduunka bu waagi hore gal buu ka jiray xoogu waa xakamaysnaa quyuud baa ku xidhan uu dhintay waa duulahayaaba ku irghaamu lmuriid sabxada 28aad ayib waa iska kooban tahay a'imatu اlwathaniya waa taqaanaa xallaaj ibn اlfarid ibnu carabi ibnu sabciin ibnu sina badawi shibli bistaami shaadali tilmisani axmed zayn adaxlaani kawdari a'imat alwathaniya raggaas wey marka waxaa weeyaan hawshu shibli sheekh maxamuud waa nin hore oo suufi ah wey nin hore oo suufi oo wathani ah weeye ciyaadan billah niman meeshana waraan ku jirin akhriray idan hawshu waa saas nimanka noocaasa wa haadaa haydu min fayd wa qaliilu min katiir in yar oo aan ka furray weeye safxada alwathaniyiin safxadoodii laakiin hawlo badan weeye markaynu nimankaa leena waa mushrikiin yaa mushrik noqonaya kun haddaysan mushrikiin ahayn ninka kule adduunka awliyaa maamusha alla ma maamulo oo nabigu wax kastuu og yahay jannadana asagaa iskale dadkan asagaa loo abuuray idan hawshu hawl iska kooban wey akhitnaa yaa shifaa quluubina yani waa warkii cayniyadii wacanii yaxawi lmaasi wallahi wadfaci yani cayniyaa la yihahdaa akhitna yaa shifaa quluubina nabi maxamed allah noo gargaar qalbiga daawadiisiio haye maxaan samaynaa waxaa la rabaa in besbes indhaha lagu mariyo in yarba lagugu darhayaa wacanii xawil maasi wallahi wadfaci buur waxaad iga difaacdaa igana leexisaa cid kastoo isoo hujuntan alla ka ahayd alla kayma lagugu sirhaya la soco leanno shacabku haddaad tiri ilahay xataa iga difaac way dheh nabi ilah buu noqday ma og tahay idan nabigu ma wax kasuu difaacaa aw shuhadaa uxud nabigu muxuu difaaci waaye shuhadaa uxud muxuu difaaci waaye gabadhiisa usoo qayliyatay ilmiheedu naftu qad qaadaysay wax kale ma awoode faltasbir faadumay waxba kuma awooday ilaahay ka cabso yani faltasbir waltaxtasib xadiidka usamat bnu zayd waa garanaysaa meelo badan idan hawshu waa iska kooban tahay nabi maxamed waa bashar min albashar laakiin ilaahay baa karaameeyey doortay risaala u doortay xuduudda uu leeyahay waa kooban tahay xaquu rasuulku ulan yahay ha u meerin lilaahi xaqun laa yakunu ligayrihi walicabdihi xaqun humaa xaqaan ilaahay xaq buu leeyahay addoonkiisa moxamed xaq buu leeyahay labadaa xaq haddaad isku baraxdo waad gaaloobaysaa bal xaquu rasuulku leeyahay haddaad abubakar siiso waad gaaloobaysaa daaca mutlaqa yaa iskale nabiy llahi maxamed salawatu haddaad laakin ta abubakar daaca mutlaq u leeyahay kaafir billahi alcadiim haddiiba rasuulkii ilaahay oo bashar ah xaquu lahaa mutaabaco ahay iyo tashriic min allahi subxaanahu wa tacaala asagu u lahaa cid kala siiso aad ku gaaloobi bashar xaquu lahaa haddaad bashar kale u meerisaad ku gaaloobi baan ku uhi biitifaaqi اlmuslimiin maxaan loogu gaaloobaynin xaqi ilaahay lahaa marka rasuulka la siiyo oo awliye la siiyo labadii isku dhoweyda makhluuqaadka iyo basharka isla ahaydba hadday lagu gaaloobay isweydaarintoodii maxaana ilaahay xaqiisii iyo xaqa bini aadamka marka laisku barxo ama la isweydaarsa aan lagu gaaloobay yani waxaan meesha ku jiran wey wاlmuraadu bal wlmuraadu ha inoo joogo cashirka hada bilahi tawfiiq xoogow waxaan mise waan yar wadaa hada bilahi tawfiiq